waxa kale cajiiba in 20 nin ama 10 nin intay baxdo cadowga dhexdiisa ay wax ka soo disho ka soo laabato ayagoo nabad qaba hubkoodii wata waa wax qof bani aadam lagu qiimeyn karo dhinacaas wanaaga ah waxa fiican dhinaca kalena in la kumbeer gareeyo xumaanta oo aan dhinaca kalena xumaanta la ilaaliyo horta insaanka xoog mid dalka sidiisa marka ciidan military la dhisaayo waxa lagu tababaraa how to kill the enemy sida wax loo dilo cadowgu intuusan ku arag intuusan ku dil baa la baraa meesha booliiska iyo hay'adaha amniga la baro how to save sida loo badbaadiyo naf iyo maal taa marka cilad kuma lihidin markii aad idinkoo how to kill idin soo baray aad tii kaloo booliiskana aad ku darsateen dhinacii tababarkii iyo diyaarintii ka dhiman laakiin waxaad ogaataan mas'uuliin baatiin Allah hortiis mas'uuliin baatiin nafta bani aadamku qiimo weyn bay leedahay waxaan rabaa saad ogtiin anaga ciidan aan nahay ciidan waxaan ka siinahay military aan ka siinahay shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waay ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno waxa waay sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil in uu ka qayb galo wax la sheegayo urur in uu ka qayb galo hool kasto siyaasad keenayso in uu ka qayb galo xaraan ay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganay dhan marka waxa maqleynay meelahan ka maqleynay nuxo aan maqleynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb galin siyaasadaha meelahan ka socdo hadii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad amaanka asugto qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay amaankaaga sug in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas'uuliyadda intaas waa bis wax kale laga maro amaanka sug dawladda cid allaal cid ay keensatana waad ku qasban tahay inaad dawladda amarkeed qaadato marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha naqato mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari haduu sheegto dadka dhan u dhaxeeya marka dadka u dhaxeys maxaa sameynaysaa qof kasto amaankiisa inaad sugto oo handaabka adii aad mas'uulka aad ka tahay amaankiisa inaad sugtaa mas'uuliyad ay tahay marka waxaan leeyahay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan hala sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo in ciidanku sidiisaba maalinta aad tuutaha gashatay baa horta qabiilku ugu dambaysa oo dhaqameedna ma tiid shacabna ma tiid ciidan baa tiid intiina direeska wada gashatay baa isku qabiila isku ehela isku dada iskuna hilbadiriraya inuu midba midka kale ilaaliyo way muhiimad oo ka warqabo laakiin idinkii dhiiga wada daadinayo cadawga xabadda ku wada ridayay reer hebel baan aadaya iyo reer hebel baan noqonaya iyo keeraan noqonaya ciidanimada wax ka jira ma wax lagu yaqaanina ma ciidanka xoogga dalka horta taa in laga waantoobno waa rabnaa hadday jirto ina idinku difaacaasa ku wada jirtaan cadow waa la dagaalamaysaan haddana in la yiraahdo reer hebel macna idin sameeymayso ciidan xoogga dalbaynu nahay calankaas bayna ka wada dhaxay inuu harsanayno taas waa tan labaad oo aan ka hadlayo oo uu taliyaha qaybtu ka dhawaajiyay oo ah saraakiil badan oo waxa jirta aan tababar soo marin laakiin darajo sita waa sax tababarku saraakiishu dhowr nooc waa ku qaadataa darajada intooda badan waxa ay cad inay ku qaateen dagaal iyo geesinimo oo aysan iska qaadan oo maaragtay ay la isaga tixin laakiin inay rag dalka soo difaacay abaalmarin looga siiyay in darajada la siiyo insha Allah inta ka dhiman
ama tababara waa loo diraya haddii Allah uu daleedmo askari walbana wuxuu mutaysto baan ku abaalmarinayna askari walba waxa uu mutaysto oo lagu abaalmarinaya waan dareemayaa rag badan oo xoogaa isleh riyow indhowadna looma imaano dalcad baa naga raagtay oo waxba si naga noqday insha Allah ma dhici doonto haddii Allah uu daleedmo in waxaan rajaynayaa halakan waa ku soo badbadanaya inta hadda uu taliyaha guutadu sheegayna waa maraya haddii ilaahay qaybta 43aad xuquuqaha idinka maqan ama dalacadaha idinka maqanna insha Allah waa heli doontaan wallahi maanta wax isku maayay bal marka ay u timid cabada qabiil marka wax faa'iido ma qabiil totally ciidan baynu ka nahay banaankaas naga istaagay darajada tan qabiil baa idin qaran baa idin mar hadduu qaran qabiil darajada siinayo uusan qabiil wax ku siin karin xaaba meesha yaal waxa tuutaha u gashateen naf wax ka qaalisan miyaa jira nafta waxa tuutaha waxa u gashateen dalkiina u dhimataan oo aad u dhaarteen marka dhaartii aad marteen inaad ka dhabaysaan baa rabaa waxaan rabnaa ciidanka in la wacyi geliyo wax loo sheego inta badan laga wacdiyo in qabiil iyo kooxaysi iyo midkaasi ma noqdo sidana waxa ogaataan maamul goboleed shuqul kuma leh ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed mar hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tahay qaran baa tahay waa dawladda federaalka meel ka sokaysa ma leh maamul goboleed ma leh ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka waqti Soomaaliya waxa meesha idinka la idinka xukuma waa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamul goboleed ma xukuma دارت وين فهمتها maamul baa waraaq soo magiciisay maamul miyaa darajo ku siin karaa mushaar buu ku siin karaa kuma siin karaa yaan been isu sheegay qaran baa tihiin qaran baa sanaysaan qarannimada u dhimanaysaan oo waxaa dalkeeda dalka u difaacaysaan oo waxaa tuutaa ugu shantiin taa hortaan aamin min walibana isku kalsoonaado kalsoonideedu ku jirta inaad cadowga la dirtaan Ina
طريقنا حبو نعبك